maanta waxaa xafiiska jaaliyadda ogaadeenaya magaalada Edmonton Alberta ka qabsoomay shir si wada jira ay u soo qabanqaabiyeen ururada haweenka Oromiya iyo Ogaadeniya. shirkan ayaa ahaa mid isbarasho lana filayaa hadda kadib in uu halkiisii ka sii socon doono. haddaba shirkaasi markuu soo dhamaaday qaar kamida ayaanu su'aalo ka weydiinay ujeedka shirkan maanta oo qabsoomay. aan ku bilaabo gabadhan magaceeda oo saddexan iyo community-ga ay ka socoto walaale. anaga Ogaadeen iyo Oromo walaalo banahay. okay waxa ku xigta gabadhan Oromiya waxa ku xigta gabadh kamid ah gabdhaha Ogaadeniya oo iyaduna ka hadlaysa shirka maanta iyo qaabka ay u arkaysay walaal adiga oo ka hadlaya shirkan iyo qaabka uu dhacay. walaal shirka wuxuu ahaa shir ay isku baranayeen gabdhaha Oromiya iyo gabdhaha Ogaadeniya. waxaana noogu qabsamay si qurux badan ma sha Allah noogu qabsamay una noo sii socon doona billahi kariim. waxaana muhiimada ay tahay gumaysiga ku habsaday wadankanaga hooyo naga dhigay inaanu duurka wareegnayaan rabnaa sidaan uga tashan lahayn tikreega inaan wadankanaga ka wada kicinaa noo gamcahaysaysanna. marka ma isla qaadateen in Oromiya Ogaadeniya hal dhib ah oo ku wada dhaco dumarkooda? waan isla qaadanay Oromiya Ogaadeniya hal dhib inuu ku wada dhaco waxa jeelasha ka buuxay la kufsanaya la dilayo in gabdhaha Oromiya gabdhaha Ogaadeniya iyo wiilashooda ay yihiin. aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal. gabadha ku xigta waa mid kamid ah gabdhaha ka socday Oromiya community in Alberta. walaal adiga oo ku bilaabaya magacaaga. Munira hadii aad ku hadasho Oromo iyo af Soomaali aad iyo aad baan u jeclaan lahayn waa Ilays TV waxaanu aad u jeclaan lahayn in ay aad ku hadasho af Soomaali hadii uu adkaadana waad ku hadli kartaa Oromiyo English kolba kaad karto. السلام عليكم أنا أرومودان أبلينك يا خا أوغاديني في نوتيتوكو أملي نواني نغرغر باسان جرتو تغري دمالي إسان ماتو وليتي نفيدي أدان بباسي خناجة نوفي أوغادين تكانجا aad iyo aad baad u mahadsantahay waa gudoomiyaha ururka haweenka Ogaadeniya ee Canada maamul qasad. maanta shirkan aad halkan ku qabateen ujeedkiisu muxuu ahaa? السلام عليكم magacayga hore oo shirka qasab maxamed nur baa la dhahaa waxa ururka haweenka iyo ururka gabdhaha Oromiya yaan midowgooda iyo wada qabsiganaga tashiganaga maanta isugu nimid insha Allah inuu sii socdana waan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo hal cudur baan wada qabnaa halka cudur inaanu ka wada daawoono hadii Ilaahay yiraahdo yaan isugu nimid oo naf iyo maalba aanu isugu nimid inaanu arrimaha dalkanaga dadkanaga aanu ka tashano. cudurka daawadiisa maxaad isla qaadateen inuu yahay? cudurka daawadiisa waxa weeye waa inaan xorriye helaa oo Oromiya iyo Ogaadeen ay xorriye helaan iyo intii dhibaataysan maartay ay wayaanu haysataan. marka taas aanu isugu nimid wayaana inaanu wadankanaga ka saaro inaanu xaq iyaga soo dhacsano yaan gabdhaha Oromiya gabdhaha Ogaadeniya isugu yimaadeen. insha Allah waxaan rajaynaynaa in intaas sii socdaan inaanu ka xorowno dhibaatada maartay wadankanaga iyo dalkanaga dadkanaga haysatay qaxootiga nagartay hadda meesha na keentay. insha Allah waan ka rajaynaynaa ma sii socon doonaa marka shirarka noocan oo kala ah hadii Ilaahay uu sii soconayaa hadii Ilaahay yiraahdo inuu ku tala jiro inuu sii socdo oo waliba aanu meel sare aan kaga soo noqonaan. aad iyo aad baad u mahadsantahay. waxaan wari bartamaha kaga jiraa shirkii maanta ka qabsoomay xafiiska jaaliyadda Ogaadeniya ee magaalada Edmonton. walaal adigoo ku bilaabaya magacaaga kana socda community-ga dumarka Oromiya ee maanta shirka soo qayb galay. مكان خينا يمادا سو أرانتنا والناس جروف واي أوغاديني في أوروموتي ليو بوليس أوغادين بكمبو أوبيديون أورومو بكمبوتو نو في أوغاد أمني أوغادين توكو ما خينيان موتما تغريدا وياني دا تفسينيتي بلسوما تيني غنفنا واني تكالين دوبتي نندي بسو ummata wayyaane da cabsuudha ummata bakka numbuuneef bakka khannino Oromiyaan ni bilisoonti injifannoon ta ummata Ogaadeeni ta ummata Oromooti. weli waxaan dhaxda kaga sii jiraa barnaamijkii maanta shirku markuu soo gabagabay aanu idin sheegnay in aanu Ilays TV la dhaxmaray
walaale adiga oo magacaaga ku bilaabaya qaabkii uu maanta shirku u dhacay iyo guulaha aad filayso inaad shirkaas ka gaadheen. bismillaahi rahmaani rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Subri Cabdullaahi ismaatinka anaga wuxuu aad iyo aad uga rajaynaynaa inuu tar weyn u leeyahay halganka anaga ka Oromiya iyo ka Ogaadeniya inaanu gabdhaha haddaan nahay reer Ogaadeniya iyo gabdhaha reer Oromiya aan gacmaha isqabsano inaanu xoojino wiilasha noo dagaalamaya iyo kuwa siyaasadda ku dagaalamaya qalinka ku dagaalamaya kuwa qoriga ku dagaalamaya inaanu xoojino wixii aan heli karno ee hanti iyo hoo iyo tala ah inaanu la garab istaagno waana ku heshiinay marar badan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu shirab kale oo kuwa ka waaweyn aan isugu nimaadno ama intan is aragnagi iyo barashadii hore ahayd insha Allah waxa hadda ka dambeeyay inay shirar waaweyn noo qabsamaan maanta anaga marti qaadnay marka ku xigtana iyakaana marti qaadaya insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo marka hawshanadu meeshaas ka sii soconayna halkan xoojinayna insha Allah haduu Ilaahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waad mahadsantihiin dhammaantiin aad iyo aad waana idinka mahad celinaynaa aad iyo aad sidii lagu yaqaanay istallawadan waxay ka mid ahayd tii ku soo caan baxday mudaharaadadii baryahan ugu dambeysay ka socday Oromiya iyo gobolka Amhara ugu horeyna ka bilaabatay gobolka Oromiya calaamadii wali way sii socotaa inkasta oo gumaysiga Ethiopia ay sameeyeen cunaqabatayn iyo in la arki waayo haddana waxaan la soconaa ciyaartoygii in uu maalmihii ugu dambeeyay magaalada London oo radiyadii ka dhacay uu ku soo bandhigayay calaamadiina way sii jirtaa waxaana noo sheegeen inta ay la guumaystay wayaanuhu in uu sii soconayo man Oromotiin Oromiya kuftu lamuatihi jitu lamuatihi kuftu lamuatihi liganda batiati hayl mami wariga halistila somaray oy dadweyno hayl mami wariga halistila somaray halkan keeni dheera holaciya dhibkiisii maalaseetaane imisahalyay goy inte reera baabay intee baandiyamaa heer hodana baabay afrikana waa hawl halaq lagama waaye hubka qaata oo kaca kulli heegan wadagala hawli kawma joogtee haddii lay xidhxidhi jiro oon xabsiyada ku jiray haddii lay xidhxidhi jiro oon xabsiyada ku jiray haddii lay xasuuqi jiray xaalkii waa isbedelay haddii lay xasuuqi jiray xaalkii waa isbedelay xaylaa iyo xaaraantiisii way xayiran yihiin xaylaa iyo xaaraantiisii way xayiran yihiin wuu ku xamahalan jiray waa xornimo u dere anadadii joog xawaari way halgamahayaan anadadii joog xawaari way halgamahayaan habeen iyo mahari caado way hurjoomayaan habeen iyo mahari caado way hurjoomayaan horarkii ciidaheena dhaahay cashir bay baraan horarkii ciidaheena dhaahay cashir bay baraan halkoo cagta sahara ciiday ku gubahayaan